feras lofku wuxuu leeyahay xasuusan hadhay dadka inta waaweyn baan la hadlay inta yaryara weli ku jirta iyagu way macnahaas weli may gaadhin tanna waa sheekadayda markii aan ahaa 14 jir ilaa 15 intaanan weli bartankiisii intaanan wada dhammaysan 13 dhammaadkiisii ka soo qaad 14 ilaa 15 bartankeeda anaka waxaan deganay daarad ooda jiingadaa nooga dhisnaa barkad biyaha laga cabaa noogu taalay jikaameel noogu taalay wakaas reeralkaa degan baan ahay dhabarkayaga waxaa marta wado suuqay ka timaada suuqa wax yar baana u jirnaa waxay aadaa bannaanka wadadaas aadaa ama suuq xagga naga xigay ayay gashaa labadaba waana lasii dhaafi karaa bannaanka ee aadaa wiilba halkaas soo mara aada qurux badan waa aniga markaas siduu iila ekaa nin yaroo dhalinyaro ah 18 hadduu u bato meedahaasa golxa yaroo soo gudan leh midab maariin ama midabka jukuleedka la yidhaahda leh halkaasuu kaga soo bilaaba markaa daaradeedu aad bay u weyntay halkaa markuu saa ula soo gudbayo guriga eegmada soo bilaaba ilaa iyo uu ku fogaado kolba uuna soo jalleeca daaradda anaa jooga maalmii damba anigana waxay galay waxaad moodo warwar ma garanayo telefoon ma jirin email iga soo sheegaya ma jirin saacadii markay tahay wuxuu soo maraa ilaa 8:15 9 inta u dhaxaysa wuxuuna soo noqdaa 10 hadduu ugu bato hadii kale uu ka soo horeeya saacada markay tahay aniga dhan weerad ayaan dilay ma sidii qof wax ku soo socda aaban isagada barkada biyo ka soo shub ama weel aan xalkiisa daadi ama wasaqdiisa amaba waxda waa kan ugu maraya eegmadayda aad bay isugu dhacday isagu wuxuu dareemay ma garanay laakiin aniga waxbaan dareemay waxaan sameeyay maalidii sheega saacada markay tan halka qac kaga sii ugu horeysa because guriga dhan saani daaradu wintay baan guriga dalaq iraahdaa jiingadu meel daloo shabeelada daloolkaasaan isha saara ilaa iyo uu sii eegayo xaafadda nagu sii xigtay wada weyn oo kale guriga markaa goyso oo guriga isku isku yaala wadada uu ka talaabo halkaas aan halka daloolka muddo kadib warqad qoraala ayuu dadba ma joogin laana aniga qura xaafadda jooga kuwayga yar iskuul bay ku maqnaayeen madrasada u taqaanaan maamada guriga iskaga jirtaa ama suuqay ku maqantay odaygu shaqo tagay aabo soo halkaas iga soo tuuray warqadii baan akhriyay maxaa wadna maxaa shimbira maxaa adduun macnaha waxay iga qabatay warqadii markaan akhriyay inaan duulo weligaa fudayd saayida ma iska dareentay intaad wax saayid ugu faraxday ma garanayo meel isga geeyeen garan waaye ciyaal oo kala u dhaqmay de maan yarayn 14 baan xilligaa ku dhawaa 13 waan dhaaf waan dhamaysta warqad qoraalan ku gali subaxiisa la sugaya marka hore uma sii dhiibayo soo laabadka dambe yaan bartiisu taagay waan u tuuray waan ka soo noqday dad dhagala uun adigu حتى سلاري ما جرت يسكور ملا بقعة ملا وحبا ملا لكن أنا مجلس حنبان كسوم مقلب كوس غير عانو ماشى عاد قبضنا أبو كنش حتى مهرته هي وصارك يعدي لها هيدا يقالها إلا إن يدي ستحد كوس غير كواني أكوش نانيس عانا بيلها أنا لكن ما قرر مش مقعية كسهل مهبين كيف نرجع سنتري لما أنتي موسون نقول شيرنا يدو ميلها اللي يجي وعيا من اللي يجي يريو ورقدي وحي سعوني السي إلا يشان يتبان كبرتنكي oo markaan uu sii socdana tiisa iiblayso tuuri jiray hadda ciid xilliga ila taagantay uu dhaafi jiray soo noqodka anigana xilliga habeennimadan qori jiray diyaar bay iga ahayd laakiin tan baan soo qaadan jiray uu tagi jiray xilligii markay tiban ana tiisa tuuri jiray mar walbana waxay ahayd inaan cidina arkin kulligaan saasan imaaday 15 maxaa dhacay waxaa la ii diray magaalo kale xataa ma odhan karay wadan kale telefoon ma jiro halka ay gala socod ma jirto socdaalku socdaal ay ugu tala galay ama ku tala galay muuhayn ina keen magaalada ku xigteen tagana galabtaad soo noqonaysaa oo dhowr saacadood u jirta saacad beebi mala u jirtay magaalada markaan numina tashi kale aan ugu dhashay waxa la waa la ii talinay ina mari maya sidii baan ku socday ku baxay wadanka baan oran karaa
taleefon male, meelaan kala soo hadlo male, meelaan kasoo xidhiidhiyo male, meeluu ii raaca male. sidii baan isku waayay dhowr bilood oo dambe sanadkii 15 intuu dhammaanay xusuustaa waan la noolaa. laakiin waxay noqotay waxaan axmed qoray hadalka kastaana wuxuu ahaan celiya cid ku celinaysa malaheeda fadhi baastaradii 20 sano markaan madaxa ka jaray. imse sano ka soo wareegay 5 sano yaan maalin maalmaha ka mid aniga weli lama guursan 20 baan madaxa ka jaray. mar kasta oo qof la suureynaya laakiin suuradaas way igu soo dhici jirtay aniga ma odhanayo xilligan jacayl baan u hayay laakiin malaha feras lofka lama ilaawadii baa igu qufulnayd. kadibna ayaan suuqa bartankiisa magaaladii aanu ku kulannay hadda maaha magaalo kale oo weyn bartankeedaan ku kulannay sidan oo kale uun sidii laba qac duhur bay ahayd waan xasuustay waan istaagay xataa wixii joojiyay ma aqaan isaguna wuu istaagay. dabeedna markaan cabbaar minid adigu ilaa 1 minid si eeganay wuu soo dhaqo heblaay iska waran nabada hebelow iska waran magacayagu first time kan isugu wacnay halkaas waa fiicanahay iska waran maxaad sidaa igu gashay. waxaan dhahay wax iga xoog badan baa ay helay aniga ma ku talagelin. waxaan rabay inaan heblo magaalo heblo ka soo noqdo inay ugu xigtaan xoog baa laygu gaxay marka dambana meel ka soo meel aanan kaaday iyo cid xataa deriska dad aanan la hadli jirin maan dartaa ula hadlay. qofkaas wuxuu ku dhahay wallaahi ma garanayno. so waxaan dhahay imika maxaa kuu dambeeyo reer baan yeeshay hal ilmaan haystaa gabadh beer qabaa wakaas taleefanaan kala qoranay jacayl maaha laakiin xilli walaalnimaan muddo wuxuu yidhi anigu weli halkii iyo jacaylkii iga taagaye maxay adiga kula tahay ma isku soo noqonaa maya baan nidhi gabadh walaashaya oo ilmihii ugu haysata oo guri degan gurigeeda intaan ka daba imaado ma duminay maya waan ballan qaadaya inaanay dumayn. laakiin hadday igu adkaato adigii iyada ay noqoto oo ay tiraahdo ma joogay haddaad gabadh ila guursato inantaa waan fasaxaya ilmahaygana wixii aan siinaya waan siinaya kama goosanay. allahay ka allaanada reer meel degan intaan dhex imaado ama ha lagu heshiiyo ama ha laba la isku diiday dhex iman maayo anugu shaytaankii koobaad noqon maayo maahe ka damay waa sidaa. maxaad yeeli lahayd maalintaas tusada halkaa kaaga soo bixila ma rumaysanaysaa waxaan gacanta uga hay xataa waa iga dhaceen baa gacanta kusada dhulka igaga dhacday. so ma yeeli lahayd mise waddada anigu waan qaatay baad qaadan lahayd mise waan qaldanaa ayna iska yeelay ahayd.